السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan halka ka salaamayaa bulshooyinka reer Somaliland ee dunida daciifiyada iyo dacaladeeda ku kala sugan. Marka xigta waxaan Ilaahay ka baryayaa in Ilaahay abaarta inaga jibiyo, Ilaahay roob khayr qaba ama madar khayr qaba ina siiyo, Ilaahay naxariistiisa lagama quusto, Ilaahay aan barino dadkiina ha loo gurmado. marka xigta waxaan jecelahay halkan waxa soo dhow 18 May runtii waxaan ka codsanayaa dhammaan boqorba jooga reer Somaliland xafladaha la qabto 18 May in loogu gurmado arrinta ambaaraha oo loogu raadiyo faraysin iyo dhaqaale si looga qayb qaato gurmadka dadka walaalaheena ee abaartu saameysay. intaa kadib fiidiyogan galabta waxaan u soo duubay dad badan oo indhaweydba Facebook aan ku arkayay oo runtii aad moodayso inay ku asqoobeen siyaasadda geeska Afrika, inay ku asqoobeen siyaasadda Somaliland, inay ku asqoobeen siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. runtii waxaan jecelahay waxa jira dad badan oo reer Somaliland oo runtii aad moodo inuu jahadii ka luntay, runtii oo aad moodo inay beriyahan dambe ay caado ka dhigteen inay Somaliland caayaan ama maagaan. runtii horta marka ugu horeysa waxa la yiraahdo aftahanimada ama balaaqa ama qofku inuu dadka wax u sheego waa hibe Ilaahay bixiyo, qofku doonaan u siiyaa. runtii waxaan jecelahay halkan waxaan arkay dad badan oo aan runtii cidna soo jiidan karin, cidna wax u sheegi karin, cidna waxba ka dhaadhicin karin oo halkan ka hadlaya Facebook. runtii waxaan arkay dad abuuraya naxli iyo xanuun cusub oo hor leh. waxaan arkay dad isku diraya, dad walaalo ah, deris ah, dhiig wadaaga, dhaqan wadaaga, af wadaaga, diin wadaaga, laakiinse haddana ka hadlaya inay doonayaan inay helaan midnimo iyo federaal. horta marka ugu horeysa waxaan jecelahay qofku waxa weeye marka ugu horeysa waa inaad fahmi karaysaa jihada aad ka tegaysid iyo jihada aad u kacaysid, maxaa u dhexeeya, direction kee qaadanaysaa, wadadee maraysaa, sidee uga howlgelaysaa. runtii waxaan qabaa arrinku maaha intaad Facebook soo gasho adiga oo shakhsi keligaaya oo dadkiisii iyo dalkiisii iyo dadkiisii ka yimi inaad tidhaahdo ummaddii iyo dadkii iyo dalkii aan ka yimi anigaa ka fiican oo ka caqli wanaagsan. runtii midaan anigu odhan karo maaha mid caqliga fiyow ama qofka caafimaadka qabaa oo odhan karana maaha. waxaan maqli jiray qofku markuu washo wuxuu ku washaa familigiisa iyo dadka xiga. dee dadka beriyahan dambe waxay ku wareereen Somaliland bay ku wareereen, laakiinse dee waxa weeye qofku waa inuu garan karayaa waxa aad doonayso wadadii aad u mari lahayd. so haddaad doonayso inaad caan noqoto siyaabo badan oo kaloo caan loo noqon karaa jira. haddaad doonayso inaad xil hesho siyaabo badan oo kaloo xil loo heli karaa ayaa jira. hadda iminka meel yaro dhow baan kaa tusaya. haddii aad doonayso inaad xil hesho dad badan oo Somaliland ka tegey oo shaqo tegey oo dowladda federaalka u shaqeeya jira oo xamar jooga oon qof ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn. dadkaasi Somaliland ma soo caayaan, ma soo aflagaadayaan, social media ma soo galaan, dadka reer Somaliland cusriyiin kuma sheegaan oo ma caayaan, shaqadooday qabsadaan. waxay meesha u tageenna gacantii kula jiraan. laakiinse Ilaahay baan kugu dhaariyey intaad Facebook soo gasho inaad halkan qolkaaga dhexdiisa ka tanactanaclayso oo dadka ka caydo, xaggee adiga ku geynaysaa? se maxay ka qabanaysaa midnimada aad ka hadlaysid iyo federaalka? runtii waxa weeye qofka aabihii iyo hooyadii iyo abtigii iyo adeerkii iyo inadeerkii iyo inabtigii iyo seedigii iyo dumaashidii intiiba halkaa joogaane caayaya. aniga I don't think so inuu cid kale wax ku kordhin karo. ay ku sheegaya cusriyin
haddana boqolaalka qof ee haytriska ah ee somalilan necbi ay leeyihin wallahi geesi baata libaax baata caqli baad leedahay marka haddaad minis dadkaagii hooyadaa iyo aabbaha iyo reerkiina aad ka timi waa bilaa caqli adiga marka adiga caqli la soo maa amso waad mahadsantahay buu soo qoraya war miyaanad damiir lahayn war miyaanad qalbi lahayn war miyaanad xishoonayn oo wax laga xishoodo qiso yaroo berin inooga sheekeeyey ayaa waxay ahayd wuxuu yihi nin baa qurbaha soo galay waddamada islaamka ka yimi markaasuu markii sharcigii ku adkaaday noloshii ku adkaatay waxba qabsan kari waay nin aada u jilicsanna u ahaa ayuu yiri kaniisadday ka dhowday kaniisadda iska tago kaniisadda iska dhibo wax tahay kristan baan ahay deedna baadarigii kaniisadda joogay baa ku yidhi ma kristan baad doonaysaa inaad noqoto ha markaasuu yidhi okay de haddaad doonaysaa inaad kristan noqoto de waa inaad na tustaa shuruudda aan doonayno kadib markaasaan kristanatiga ku ogolaanayna markaasuu maxay tahay shuruudda markaasuu yidhi kitaabkii qur-aanka ahaa ayaan soo qaadayaa halkan aan dhigayaa haddaad ka baxday waa inaad ku istaagto kuna kaadido subxaanaka ya cadiim doqontiyey waad samaysay intii buu sameeyey markuu intii sameeyey ayuu ninkii baadarigaa ku yidhi diintii aad shalay ku jirtay ayaad isku taagto ku kaadida ta cusub ee aad maanta soo gashay maxaad u qaban doontaa orod naga tag waxba u qaban maysida calashaan wuxuu fahmay qofkan qadiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo shaksiyadiisu intaay laag tahay waxaan qabaa dadka baryahan dambe le dadkii iyo dalkii aanu ka nimi waa cunsuriyeen dee adigoo dalkaagii oo sheikh leh oo shariif leh oo culimo leh oo waxgarad leh oo aqoonyahan leh oo shacab leh oo haween leh oo dhalinyaro leh oo salaadiin leh oo cuqaal leh oo madax leh oo wasiiro leh caayaya federaalka maxaad la tegaysaa ayaad doonaysaa inaad federaal ku noqoto ma naftaadaad federaal ku noqonaysaa mise dadkan aad sheegaysa inaad caayayso ayaad doonaysaa inaad federaal ku noqoto sidee dadkaada cula qaybsan waa arrin aada u cajiib badan caqliga saliimka ahi waa arrin aada u cajiib badan runtii waxaan jecelahay haddiiba aada saaxiibow agnaan tahay haddiiba aanad laba erey qof u sheegi karayn haddiiba aanad hadli karaynin waar inaad haro iska aamuskaa kuwa khayr badane iska aamuyo waddamadan opportunity badan oo shaqaa taalle eh iska xamaal iska gal 24 hours shaqee overtime samee habeeniya maalin shaqee gurigaaga isku xub haddaad is og tahay inaanad hadli garanayn waa ku sideedee xaggaad isaga tadhaacinaysaa taydha naga daadee ilaahay baan kugu dhaariyey waxaan doonayaa inaan halkan aan doonayaa inaan qodobka labaad kaga hadlo midnimada soomaaliya ee dalkii somali republic dalkii la oran jiray ee caalanka buluuga lahaa waynu garanaynaa caalanka buluuga hadafkiisa iyo xidigta shanta gees ee ku taalla iyo shantii soomaaliyeed in laysla helayo somalilan iyo soomaalida koonfureed waxay ku midoobeen waxaasoo dhan waa la garanaya hadafkii shantii soomaaliya waynu ognahay maanta halka laga joogo labadii isku biiray halka ay maanta kala joogaanna waynu ognahay midnimadu waxay ku timaadaa dee dad walaalaahoo isdoonaya inay midoobaan baa midooba midnimadu waxay ka dhalataa heshiis labada qof isfahmaan ama heshiis labada dad isfahmaan runtii xaqiiqada markaan ka hadlo labada dad isma fahansanaa ismana dhexgeli karaan oo aniga fikirkii rayga aan qabo iyo degaankii iyo dhulkii aan qaynin haddii loo bato in federaal la noqdo oo dadka reer somalilan ay intooda badan federaal doonayaan wax ku jabana ma jiraan laakiinse haddaanay dadka reer somalilan doonayan inay federaal noqdaan ama soomaaliya ka mid noqdaan cid ku qasbi kartaa ma jirto midnimada anaa shalay keenay maantana anaa diidan midnimada shalay anaa si bilaa shuruuda u keenay maantana ninka diidani waa aniga ee aan doonayn midnimadu markaa kuma xidhna ninka doonaye midnimadu waxay ku xidhan tahay in la helayo in la waayo ninka diidanina waa aniga mana rabo maxaa la yeelayaa sidee loo gelayaa markaa midnimadii
وحوي بني آدم وحسكو فهما واللغة af Soomaali baan ku wada hadlaynaa dad Soomaaliyeed oo wada hadlaya baynu laakiin si kala dala waxa weeye haddaad walaalkay tahay oo ay walaaltinimadu kaa dhab tahay aniga madax banaanideyda aniga jiritaankayga aniga qarankayga aniga rabitaankayga aniga dalkayga iyo dadkayga dee ogolow oo aqbal ha walaalkay waa tahay laakiinse noloshayda ma ogolid walaalkay waa tahay laakiinse jiritaankayga ma rabtid walaalkay waa tahay xornimadeyda ma rabtid inaan dawlad madax banaan oo calan noqdo intaynu isku haysanaa waa intaa ya haddaad intaa ogolaato we brothers and we love each other and I love you so haddaad intaa ogolaato anaa qarankii Soomaaliya iyo kii Somaliland inay walaaloobaan oo daris fiican noqdaan ka shaqeynayna so anigu shalay midnimada waxaan u huray dhiig waxaan u huray dhaqaale waxaan idhi wax allaale iyo waxaan rabaa oo conditionisi ma jirto wax kasta gacantan kuu saara hadday walaaltinimadu dhabkaa tahay oo aan sida aan anigu walaalkaa oo ahay shalay wax kugu keenay kaa dhab tahay waxaygii baan doonayaa without condition waxaygiisii hadda maaha waxaagaysii waxaygii baan doonayaa without condition waxaygii walaalisi haddii aad diido dee markaa ma adigoo diidan baad doonaysaa inaad walaalkay noqoto ma adigoo aan jiritaankayga rabin baad doonaysaa inaad walaalkay noqoto ma adigoo isheeganaya oo le ma reerbaa gooy kara ma 40 magaalaa gooy kara ma 500 qof maxaa kaa galay adiga iyo ku xisaabi kugu yiri ya waxa weeye midnimadu waxa loo galaa wax la yiraahdo faa'iido aniga midnimadu faa'iideygu ma jirto waan arkay waan kula midoobay hadda isbaran mayno hadda isarki mayno waxa weeye koob iyo 30 sano ayuu dalkan dad iyo dal isku ahaa fair enough waan soo aragnay so midnimo aniga xaggayga kama jirto aan walaaltinimo ahayn haddaad doonayso inaan walaalo fiican oo darisan noqono waxaygiisii haddaanad ii ogolayn waxayga ii ogolayn marka aan ku idhaahdo hay imaanin haygu caayino haygula yaabin ilaa adigaa nacaybka abuuraye ilaa annagaa wax aragnay ya haygula yaabinoo haygu caayin waxaa timi arrinta Ethiopia horta marka ugu horeysa dalka Ethiopia waa dal sida dal waliba dal u yahay Ethiopia dal u yahay dad muslima iyo dad gaalahay way ku nool yihiin waxaana badan dadka muslimiinta Ethiopia ku nool so anigu maadaama oo majority dadka Ethiopia ku nool ay muslim yihiin I don't hate them Ethiopia ma nabci dadka muslimka Ethiopia ku nool waa dad walaalahaya waa aniga dadkayga qayb kamid ah baa joogta so waxa weeye Ethiopia iyo Somaliland waa laba dal oo saaxiib ah saaxiib friendisa oo ay ka dhaxeeyaan dana badan iyo daris wanaag so aqliga Somaliland iyo Ethiopia saaxiibka ku yihiin adigoo walaalkaya oo aan isku dhiignahay oo isku dhaqannahay oo isku afnahay oo isku dadnahay oo isku dalnahay saad u fahmi weyday waxa ka doonayo waxaan kula hadlayaa ma Chinese ba miyaan af Soomaali ahayn luqadan kula hadlayaa ma Japanese ba so Somaliland waxa weeye jiritaankeeda iyo gooniisitaageeda iyo go'itaankeedu dadkeedu ka go'a adiga kama go'o adiga waxa kula gudboon walaalka waxa uu doonayo inaad garato si aad u ilaaliso walaalnimadiini iyo darisnimadiini haddii midnimadii la waayo that's your position and if you don't take your position aniga hayeedaynin aniga ha caayin waxa weeye dadka reer Somaliland ee dibadda jooga waxaan ugu baaqayaa waa inaan shaqo ka qabanno
dadka ku asqoobay federaalka ee reer somalilan waxaan idinka codsanayaa qof kasta oo reer somalilan oo facebookgiisa ku jiro qof reer somalilan oo dadka somalilan hatriska ah la shaqeeya please facebookkaaga ka saar facebookkaaga ka tuur ama familygaaga ha noqdo ama friendkaaga ha noqdo qofka ummadii dhammayd iyo dalkii dhammaa iyo dadkii u dhammaay uu ka tirsanaa caayaya ee aflagaadeynaya innaga ma aha kumuu ixtiraamin aniga ma ixtiraamin marka aad wax ku qorto ama aad sheer garayso aniga idii soo gudbinaysaa oon habi ku ahayn qof kaloo reer somalilan oo habi ku ahayn baad ayaad soo gudbinaysaa ilaa 10 qof inka badan baan ka saaray facebookkayga ilaa xala so anigu ma rabo qof somalilan nacab ama caayaya inuu facebookkayga ku jiro marna oo ogolaan maayo qof aniga dadkayga caayaya oo dalkayga caayaya aniga saaxiib la ahaan maayo friends la ahaan maayo facebook bula jiri maayo waxaan kaloo idinka codsanayaa dadka reer somalilan qurbaha jooga waa inaynu samayno urur ka shaqeeya dadkan in la diiwaan geliyo in la qoro in hay'adaha dabagalka iyo hay'adaha security-ga ka shaqeeya somalilan loo gudbiyo inaanay cag dambe gelin somalilan never waxaan codsanayaa inaan la xidhin ee markay tagaan la masaafuriyo anigu waxa weeye waxaan taageersanahay qofka inaan la xidhin ee la masaafuriyo taas baa xun so it's easy inta 2 sano xidho inuu soo baxo soo diiso it's very easy so please diyaaradda uu la socdo dib u saar u sheeg meeshii uu ka yimi ama meesha uu jecel yahay ama meesha uu la fikir yahay in loo diro laakiinse inuu xanuun aad dadka kusoo dhexdiiso oo uu haddana markaa la bulshadii somalilan kusoo dhex noqdo oo virus iyo cudur u qaybiya no waa midaan somalilan ka dhex shaqeynay xukuumadda maanta joogta waxaan leeyahay dabac badan baa samayseen arrintii somalilan iyo soomaaliya dabac badan baa ku samayseen sharciyaddii somalilan ee adkeyd hoos baa u dhigteen waxaan leeyahay xukuumadda maanta maxamed axmed maxamuud silaayo tii looga fadhiyey iyo tii laga sugayey toona maaha arrintaa dowladdu way ku dhaliilan tahay arrintaa dowladdu way ku cambaaraysan tahay waxaan leeyahay xukuumaddu arrintaa dib ha u eegto sharciyada dib ha ugu noqoto dalka iyo dadka ha lagu soo celiyo nidaamkii iyo sharcigii adkaa ee xadaynta somalilan iyo soomaaliya haddaan taa la samayn somalilan khatar bay gelaysaa waxaan arkay ubad yaryar caruur yaryar oo fikradihii iyo waxa weeye arrimihii aynaan doonayn lagu tallaalay so waxa weeye arrintani waa in la istobreeyo dowladdu waxyaabaha ay fududaysay waa in wax ka bedesho and I love all Somalilander and I love people love Somaliland so we're not hating Somalia we're not hating to anyone waxa weeye dadka aynu dowladaha aynu dariska nahay iyo dowladda soomaaliyana walaalaha nahay midna cool lama nihin laakiinse caqliga iyo aqoontaadu ha ku siiso walaalkaa wuxuu kaa rabo inaad garato walaalkaa wuxuu kaa rabo inaad garato oo wixii sii siiso markaa waynu heshiinaynaa walaalaynu noqonaynaa daris fiican baynu noqonaynaa haddaanad taa garanayn anna kuma aqaan walaaltinimadaadana aday gacantaada ku jirtaaye ama walaaltinimada weygeedii soo mar dee haddii kale nagala tag hanagu qasbin annaga walaalaadaad ba rabin oo wuxuu doonaya aanad siinayn maxaynu ku walaaloobaynaa saynu walaalaba noqonaynaa waxa weeye dadka reer somalilan waa lidin salaamayaa qarankani wuxuu u baahan yahay in la difaaco in la ilaaliyo waxa weeye somalilan and we love somaliland ha noolaato ninkii hadlayaa baa ha iska hadlee hogay heelada inoo tumaye